Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Waa qaybtii lixaad ee barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee ma ogtahay. Ma ogtahay daawada waa ma dhagaysto. Beer xayawaanaadkii ugu horreysay ee caalamka laga dhisay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska sanadii 1793. Ma ogtahay in waddanka Indonesia uu ka kooban yahay 13,000 oo jasiiradood, isla markaana uu yahay halka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ee dal qura ku nool. Xornimadiisana uu qaatay sanadii 1947. Ma ogtahay daawadow in haweenku yihiin noolaha keliya ee dhasha joojiya marka ay gaboobaan, halka noolaha kale ay dhasha kala fogeeyaan marka ay gaboobaan. Ma ogtahay in fiidmeerta iyo nibiriga dhasha ah aanu midkoodna indho lahayn, balse ay ku socdaalaan jabaqda soo noqoshadeeda, taas oo u sahasha in ay wax ugaarsadaan si ay cunto u helaan. Ma ogtahay daawadow in ninkii koowaad ee sameeyey laambadaha leydhka uu ahaa Thomas Alva Edison, oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Mareykanka. Edison markii uu ku jiray hawshan waxaa la sheegaa inuu guuldaraystay 999 jeer oo uu guulaystay markii kumaad. Ma ogtahay in shimbirka gumeysku yahay xayawaanka keliya ee qoortiisa dhinac walba u wareejin kara? Ma ogtahay in malabku yahay cuntada keliya ee dabiiciga ee aan qurmin? Ma ogtahay in caasimaddii ugu horreysay ee dunida ay tahay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya? Ma ogtahay daawadow in 5 dariiqo ee dadku kugu jeclaan karo ay yihiin: 1. inaad u muujisid qadarin; 2. dhoolla caddayn badan; 3. inaad qofka magaciisa ugu yeedho; 4. in aad dadka si wanaagsan u dhageysatid; 5. in aad ka hadasho qofku wuxuu jecel yahay. Ma ogtahay in caalimkii ikhtiraacay qalabka soolarka uu ahaa Xasan Kaamil Sabaax oo u dhashay waddanka Lubnaan? Ma ogtahay in dunida lagaga hadlo luqado gaadhaya 6,800 oo luqadood? Qaaradda Afrika waxaa lagaga hadlaa 2,400 oo luqadood. Qaaradda Aasiya 2,000 oo luqadood. Qaaradda Ameerika waxaa lagaga hadlaa 1,000 luqadood. Qaaradda Yurub 200 oo luqadood, halka dalalka Badweynta Baasifiga lagaga hadlo 1,200 oo luqadood. Ugu dambeyntii waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.